magacaygu waa Cabdishiid Maxamed Aw Faarax. magaca taleex muxuu yahay asalkeeda ama magacaas ceelkana la oran jiray ceelkaas waxa la oran jiray asalkiisa taala leex halgan baa lagu jiraa ilaalo badan baa la rabaa. maxaad ka taqaanaa geedka raadadkii qadiimiga ahaa ee degmada Taleex? Taleex waa magaalo taariikhi ah oo ku taal bariga gobolka Sool ee Soomaaliya. waa magaalo buuraley ah waxayna dhacdaa bartamaha dooxada Nugaaleed waxayna xad la leedahay gobolada Nugaal, Sanaag iyo Bari. bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. halkan aan taaganahay saaka waa magaalada taariikhiga ee Taleex. waa ceelkii magaalada magaceeda qaatay weeye. halka kan caruurtu ay ka dhaansanayso waa ku dhawaanayaa waa ceelka magaalada ugu faca weyn ee magaalada ay ka cabto. magaalada Taleex marka la yiraahdo waxaan qiyaasayaa qof walba oo Soomaaliya meeshuu doonaha jooga adduunka ka jooga inuu garanayo ama uu maaragtay xasuusanayo magaalada Taleex. sababta oo ah waa taariikhda ugu weyn ee haddaynu Soomaalinahay aynu shir la imaan karno ama aynu caalamka kula tartami karno. magaalada waxaa aad iyo aad ugu badan dhismayaal qadiimi ah, raadad daraawiishtii iyo Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ilaahay khayr badan ha siiyo ay ka tageen oo ay dhiseen dhufaysiyo maaragtay meelo ilaalo ah, meelo qudbiyo ah, waxyaalo badan oo magaalada tan ku duugan oo taariikhi ah oo aynaan hadda ka hor baahin kulli anigu aanan baahin ayaan insha Allahu tacaala baahin doonaa idinla wadaagi doonaa. waxaynu ka bilaabaynaa magaca Taleex muxuu yahay xaguu ka yimi. halkan aan taaganahay waa ceel. magaca Taleex asalkeeda ama magacaas ceelkana la oran jiray Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ilaahay ha u naxariisto wuxuu degay magaalada tan 1912 markay ahayd taariikhda miilaadigu. wuxuu ka soo guuray markaa dhinaca bariga iyo Ayl ayuu ka soo kicitimay. geedigiisa wuxuu soo socday wuxuu soo caga dhigtay meel halka dhinaca Boosaas hadda iga xigto aan fogeyn oo la yiraahdo Daarcad oo haddeerba dhisan sida la sheegay laakiin aan wali arag. halkaasuu yimid oo reerku halkaas ciidankii lagu furay. halka haddii muddo la joogay istiraatiiji bay noqon weyday meel dhufays ah kulli dawad garanaysaa waa ciidan cadowgiisu waa badan yahay halgan baa lagu jiraa ilaalo badan baa la rabaa. waxaa la rabaa khasaaruhu inuu yaraado xaggeena dadka cadowga oo Ingiriiska iyo wixii la midana dee khasaarahoodu markasta bato. Daarcad haddii ay suuban weyday sayidku waxaa la sheegay inuu sahan diray oo uu yiri meel ku habboon dhinacyo badan marka la eego meel ku habboon hala sahamiyo. waxay noo sheegeen waayeelka magaaladu waanu taariikhda ka qornay nin deegaankan ah oo la oran jiray Tiiriye Garab Yare magaciisana Faarax la yiraahdo Faarax Ismaaciil la yiraahdo oo deegaankana Dardawiishna ahaa ayaa wuxuu yiri waxaan hayaa sayidii meel ina qaada dhowr qodob buu markaa sheegay oo ay Taleex markaa ay kaga duwaneen meelaha kale oo ay degeen. waxaynu ku sheegi doonaa muuqaalkeena dambe xaggaas markaynu tagno sababaha uu sayidku u doortay Taleex inuu dego maxay ahayd. laakiin ceelkan marka uu halkan degayo sayidku oo halkan uu ciidanka dejiyay meeshu waxay ahayd ceel laga cabo oo xoolaha iyo dadku ay ka cabaan. ceelkaas waxa la oran jiray asalkiisa taala leex
taala leex magacu saas u ahaa yacni taaladii leexsanayd ceelku halkaas saa u jeedaan waa buurta sanaageedii buu ku yaallaa markaa ceelku sanaaguna had iyo jeer waa meel leexsanoo waa meesha buurtu ay la wareegayso markaa taala leex baa ceelka magaciisu hore ahaa luuqadahana had iyo jeer waxaa jira magacyada waa la soo gaabsadaa markaa taala leex magacaasoo saa u dheeraa taleex baa loo soo gaabiyey taleex marka waa ceelkaa haddaad taleex maqashaan magacaas ceelkaas weeye sida uu noo sheegay macalinka maxamed aadan dhubad oo ah macalinka maamulihii iskuulka cumar ciise jeerin iskuulka hoose dhexe ee magaalada taleex maamulo runtii khayr badan allah siiyo iskuulka in badan maamulo ka ahaa ilaa 20 sano wax ku dhow ayaanu sidaa ka xiganay taala leex markii dambana taleex waxaa badan oo dhaqanka ku badan gaar ahaan magaalooyinka Soomaalida inay magacyadoodu asal u yihiin ceelal yani biyuhu waa nolosheena marka meesha ceelka oo xoolaha iyo dadku imaanayaan aakhirka way camirantaa magaalay noqotaa magaaladii marka maxaa loo bixinayaa magacii ceelka loo bixinayaa halkan waxaa naga dhow oo bariga wax yar jirta magaalada xalin oo degmadan hoos timaada xalin waa biyo durdura dhinacan waxaa naga xigta oo iyadana magaalo ahaan noo xigta Carooli magaalo la yiraahdo oo gobolka Sool ah degmadan hoos timaada Carooli waa ceel dhinaca haddaad aado laasa curdan baa xigta maxaan ku raad god aalo laasa caanood boocame magacyadaas oo dhan waa ceelal ceel afweyn oo maaragtay magaalo sanaag gobolka sanaaga adigu magacyada magaalooyinka Soomaalida loo bixiyo had iyo jeer asalka waxaa dhaladku wuxuu ahaa ceelashu ahaa markaynu halkaa ogaanay waxaynu aadanaa dhismayaashii baynu ku bilaabaynaa halkan aad aragtaan Allahu akbar kunna idha sa'idna kabbarna wa idha nazalna sabbahna halka kan waa aragtaan dhismahan waa burburay wuxuu ahaa daartii ugu dheereed oo taleex ku taalay ahayd baa leeyahay oo haddana ugu quruxda badnayd waxay ahayd 3 dabaq bay ahayd baa leeyahay yani inay tan dunsan 3 dabaq ahayd waxaad rumaysan doontaan markaynu tagno kuwa dhisan oo cadawga Ingiriisku markuu duqeeyay aan wax badan ka qaadin markaad kuwa aragtaan oo haraagi ah baa tan ogaanaysaa marka meeshan sidaa u burburtay haddii rokolo waa dheer tahay waxaa la oran jiray daawad baa la oran jiray waayelku waxay noo sheegeen inay ahayd daartii ugu quruxda badnayd Ingiriisku markii uu duqeeyay oo cirka iyo dhulka uu ka duqeeyay ayay sidaa noqotay waxaynu aadi doonaa haddana dhismayaasha nool ee magaalada taleex ku yaalla taariikhiga ayaynu aadi doonaa ilaahay idinkiis